Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada Math Statistical Software Training. Daawashadan waxaanu ku dhigan doonaa sidaan ugu analyze gareynayno Megastat Rin aan ugu analyze gareynayno Descriptive Statistics sidii kii hore ama cashirkeenii hore aan ku analyze gareynay Data Analysis Tools. Iminkana waxaan ku analyze gareynaynaa oon dul joognaa Megastat ayaan ku analyze gareynaynaa. Marka koowaad waxaan sameynaynaa Rin ayaan ka tegaynaa waayo daawashooyinkeenii hore waxaanu soo baranay sida aan ugu install gareyno Excelka dhexdiisa Megastat iyo ka kale oo loo yaqaano Exelstat. Sidoo kalena markaan hadaba doonayo inaan ku analyze gareyno Megastatkeena waxaan tegaynaa inagoo Home tab aan joogno ayaan waxaan tegaynaa Rin tab ayaan tegaynaa. Marka Rin tab aan tagno waxaan small rectangle-ka yar ayaan furaynaa then waxaan ka dooranaa bartaas Descriptive Statistics ayaan ka dooranaa from the pop-up menu-ga inoo soo baxay. then waxaan siinaynaa click ayaan siinaynaa. Halkan waxaan inoo sheegaya in Descriptive Statistics-keena ayaan gelinaynaa ama output range-keena aan iraade input range-keena. then intan ayaan highlight gareysanayaa halka mar labaad aan ku dhufanayaa then waxaan ku dhufanayaa OK button ama haddii kale kuwan ayaan tigtaa gashanay kuwan baahnay mean iyo quartiles iyo mode iyo outlier. then haddaan doono standard error mean-keena waan ku dhufanayaa intan oo dhan waxa weeye Descriptive Statistics. then waxaan ku dhufanayaa sumka haddaan doono tick baan iska saarayaa wixii ina khuseeya skewness iyo curtainess. then waxaan ku dhufanayaa OK button ayaan ku dhufanayaa. haddii aad doontidna intan ayaa soo gala select waxaad oranaysaa select default waad oran kartaa ama kan kale waad oran kartaa waa isku mid oo option-ka haddaad u baahan tahay. then waxaan ku dhufanaa OK button ayaan ku dhufanaynaa. hadda sidoo kalena output-kii Megastatkeeni wuu noo soo bandhigay wuu noo analyze gareeyay. halkan maxaa ku qoran title-ka waxaa ku qoran Descriptive Statistics. counties-keena halkan waa number waa variable-kii uu lahaa number-ka then counties-keena waa 8 mean-kuna sidoo kalena waxa weeye waa 59 sidoo kalena sample standard deviation-keena waa 29 sidoo kalena wuxuu soo bandhigay interquartile range-keena waxa weeye waa 47 median-kuna waxa weeye waa 62 modem-ku waayo ma jiro datadeena ma jirin number uu soo noqnoqday ma jirin sidaasna waxaa lagu analyze gareeyaa Megastatkeena Descriptive Statistics-na saas lagu analyze gareeyaa.